السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن مركز صحابة جماعة ونكسن كسر دوادة وركي عالم كهنو جميلها والديارة قد بدأ وركة كده وندونتنا وحكم ده. وزير القاشان لك دولة فدرالك الصومالية محمد الشيخ حسن حامد أي شيء تبركة عيد مدى الصومالية كسر دلك أوغندا وسووا ريتشي دوكسي تبركة عيد مدى الجزيرة جودها دلك الصومالية. مناسبة الله وتلاقى استحقاق بالشدة ولو قبت تجمل يخشى قبل كبرادر يا وحى كقيم كل المسؤولين أو كم ديهاي قدوميها قبل كبرادر إحنا تقوم قلد المقدس ومدينة تسني قدوميها تجمل يخشى إرجع جارك هاي مدو يوروب وقابل سن تلك صوماليا ميكيل سيرفون دا أورسو أي عن بيرن ورك نحن تلها شلي كده جارك جيد ديارة ده أم قلد المقدس إرجع جارك هاي مدو أفريقيا وقابل سن الرماها صوماليا مستر محمد صالح النظيف أي كور من هول قلدا أميسوم أي كودان كونفورت يبرتمها الصومالي قد بلاسي قد بكلا عالمي وأي كمديهين لما قفوا كل متى فالكانوا كقرح دلكاس إندونيسيا ورك كودا وندوتان وديار جروبا جردو كلنتي عن مركلة وركيا فحسن وزير القاشان لك دولة فدرالك الصومالية محمد الشيخ حسن حامد أي شيء تبركة عيد مدى كسر عيد دلكاس أوغندا لو سوى شيء دوكسي تبركة عيد مدى الصومالية الجزيرة شذا وضحين توركم قصة دريوريها عبد العزيز إبراهيم أوكي جرائد بحث ورفدية حفيز كيسا أومان طرقو قبطي وزير كقاشان لك حكومة الصومالي محمد الشيخ حسن حامد أي شيء إن لقب الله بمانتا حردي لقو توبر جري عيد مدى حوق دلك الصومالي بهانغا ay ku taalay dalka Uganda loo soo wareejiyay dugsiga tababarada ciidanka xoogga dalka Jazeera ee magaalada Muqdisho kadib munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xiradii hore ee Xalane oo iminka fariisin waa howlgalka AMISOM taasi oo ay ka qayb galeen taliyaha ciidanka xoogga dalka General Dahir Aadan Cilmi abaandulaha ciidanka xoogga dalka General Abdirasaaq Khaliif Cilmi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya mudane Xaamid iyo tababarayaashii xirada Bihanga dalka Uganda tababarada ku siri jiray ciidamada Soomaaliya oo haatan loo soo wareejiyay xirada dugsiga tababarada ciidanka Jazeera ee magaalada Muqdisho muddo dheer wadahadal dheer kadib waxaan ku guuleysanay in European Unionka ku qancino in ay xiradaas ka soo raraan Uganda oo ay keenaan Muqdisho si ay loogu suurto gasho in ciidamadeena ay ku tababartaan hawadooda cimilada aan ka wadaa iyo dhaqanka ciidda intaas mudarintii waqti dheer ay soo qaadatay wadahadalkaas socday muddo sanad kadib hadda waxaa noo suurtoobay in maanta ay si rasmi ah xaradii ay halkaan ay uga howlgalayaan waxaana General Gerald oo ahaa madaxa urur yani madaxa ururkaas oo maanta xilkii ku wareejinaya يعني من يراد جنرال مارسينو وأصلا ذلك تلياني كالصعدة وحنا رجينا إن أرنتاس قيد وكقابته بسدة إذا ماذا قلب كسيدة دينا عكلا وزيرك قاشانديق حكومة الصومالية مدن حامد أيها هوستك حريقي إلانا وحسامينا كل يلن دون هولها إذن كإدالكوا قرحي شليك دعاي أفافك هراء أربورك آذن عبد المقالة المقدشو runtii shirkan yani maanta xiriirinta dhacday iyo ciidamada tababarka inta ka bilaabay doona taas oo ay ku tusaysaa martin international community ama dawladaha caalamka ee gacanta la siiyo ay ka go'an tahay sidii hore loogu socon lahaa marka arrin kastoo maradiidku uu ku kaco haday ahaan leed gaari isqarxin hadana dad ay beegsadaan nagala duwayso meesha u soconno oo ah inaan dalkan aan ka xoreyno maradiidka ku haray meelaha yar عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تيفي عالمي يونيفرسال مقالة المقدشو دقة كلا يرجع جارك ميدوغ أفريقيا وقابل سنة رمها الصومالية مستر محمد صالح النظيف أي كور رمي هالجلادة إلى مدى أميسوم أكس على يبرتمها هي كونفورت الصومالية النظيف على ودي سيدا أو نقول دوره هالجلادة كسعانة الصومالية أي واحد وكجوا وسيدة labada bilood ee soo socota waxay ciidamada AMISOM qaadi doonaan howlgallo muhiim ah oo looga hortagayo al-shabaab waxaana la weerari doonaa xarumaha ay weli kaga sugan yihiin gudaha dalka waxa kale oo sheegay in ergeygani in weerarada ay qaadayso AMISOM ay hormuud ka noqonayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya asigoo tilmaamay in markaasi wax laga bedelay istiraatiijiyadii hore ee dagaalka AMISOM oo markii hore ah istifaacid balse hadda laga dhigay weeraro lagu qaadayo kooxaha argagixisada ah
mar uu ka hadlayay baaritaanka ku biiritaanka ciidamada Itoobiya ee markaasi ku biiray AMISOM ayuu sheegay in tani ay qayb ka tahay ballaarinta howlgalkooda oo muddo sanad ah ka socday isagoo xusay in la gaaray xilligii dalka oo dhan laga xoreyn lahaa al-shabaab waxay caawin doonaan ciidamada AMISOM si loo hubiyo horumarka laga gaaray dhinaca howlgalada iyo waliba nabad ku sugidda goobaha ay dalka kaga sugan yihiin ayuu markaasi ku sii diray mas'uulkan oo hadaladiisa ku dheeraaday howlaha kale ee AMISOM qaban doonto ayuu ku sheegay in aysan ahayn oo kaliya ka howlgalid military balse oo ku jiraan buu yiri xasilinta wadanka oo dhan sida xalinta khilaafada dawladda Soomaaliya iyo waliba dawlad goboleedyada hadiiba ay dhacaan iyo ka hortagida dagaalada ka dhexdhasha qabaa'ilada Soomaaliyeed ayuu intaas sii raacshay Maxamed Saalax Nadiif ayaa tilmaamay in markaas dawladda Soomaaliya loo qorsheeyay sidii loogu tababari lahaa ciidamo gaaray ilaa 10,000 oo askari kuwaas oo ka howlgali doona qaybaha kamid ah gudaha dalka isla markaana ay u dhameystiran yihiin xuquuqda ay u baahan yihiin oo ay ku jirto mushaarkooda oo si joogto ah ay u heli doonaan ugu dambeyntii qaramada midoobay iyo waliba midowga Afrika ayaa si joogto ah u bixin doona taageerada la siinayo dawladda Soomaaliya ee ku aadan in dib loo xoreeyo magaalooyin dhowr ah oo ay al-shabaab wali ku sugan yihiin dhanka kalena degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay munaasabad isdhexgalka bulshada ahayd taas oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin oo kamid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Tarsan iyo waliba gudoomiyaha degmada Yakshiid sida oo warbixinta warkan ku soo dirayo wariyaha Maxamed Cabdi Caynte degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir waxa ay kamid tahay degmooyinka ay ka hirgaleen horumarada kala duwan ee waayadii dambe ka soo bilaabmay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana inta badan degmada Yakshiid lagu tilmaamaa inay tahay degmooyinka ugu horeeya ee gobolka Banaadir haddaba munaasabad uu ka soo qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka Kaaraan Shibis qaar kamid dadka magaca ku dhaxlay bulshada Soomaaliyeed oo ay kamid yihiin fanaaniin iyo waxgarad ayaa waxa ka dhacday xarunta degmada Yakshiid ee magaalada Muqdisho inta ay socotay munaasabada ayaa waxa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo waliba heesa ka turjumaya waxqabadka gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo waliba gudoomiyaha degmada Yakshiid Muxiidiin Xasan Jurus gudoomiyaha lama geesfaraaye qashinkoo lagu rayahay god loo qodo lagu gubayahay anagana waan garwaaqsane Yakshiidna guri nabada guuloo gudoomiyaha Yakshiid ee gobolka Banaadir Muxiidiin Xasan Jurus ayaa hadal halka ka soo jeediyay waxa uu martida ku soo dhaweeyay degmadiisa Yakshiid maanta waxaa ka dhigtay shaqada soo galeen dhammaan afardimo oo la isku wada qeybta la isku yiraahdo oo ku saabsanay sida la sheegay maaha maqlisiin sifeynta al-shabaab ayaa la isku yimay waxaan inaan isugu daarno iskala hadlo waxyaabaha la iska doonayo shacabka fardimo halka la soo keenay waxaa laga doonayaa inay al-shabaab iyo cid taageerto iyo wixii shaqada al-shabaab inay soo sheegaan ay gacanta ku qabtaan ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa soo gunaanay munaasabada isdhexgalka ahayd ee ka dhacday degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir war ciyaar yar oo numbarkooda tirsan yahay miya amniga laga qaadayo ciyaar yar oo amnigooda tirsan yahay miya amniga laga qaadayo waxaan rabnaa inaan amnigeena xishano afartan degmo waa inay amnigooda xishaan midka kaarada soo gala oo ka soo xaraabo kaarada ficil ku soo sameeya soo xaraya waa inay Yakshiid qabataa Maxamed Cabdi Caynte telefishinka Universal magaalada caasimadda Muqdisho ergeyga gaarka ah ee midowga Yurub u qaabishan dalka Soomaaliya Michael Serfonta Urso ayaa ambaaray weerarkii naxdinta lahaa ee maalintii shalayd ka dhacay gaarka gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana hadalkiisa ku bilaabay waxaan si weyn ugu tacsiyeynayaa muwaadiniinta Soomaalida ee ku dhimatay weerarkaasi waxaana u rajeynayaa kuwa ku dhaawacmay soo boqosho degdeg ah dadka Soomaalida waa ay ka daaleen bamboon iyo waliba dhig daato ay sababaan argagixisada doonaysa kaliya inay faafiyaan cabsi iyo saboolnimo hase yeeshee weerar bam ama isqarxin midna kuma qancayaan argagixisada markaasi uu yiri horarka ahi
kaliya waxa ay sii xoojinaysaa go'aankooda looga soo horjeedo kooxaha nabadeedka ah. midowga Yurub iyo UN-ka iyo waliba dhammaan beesha caalamka waxay sii wadayaan in ay taageeraan Soomaaliya hoggaanka dalkooda iyo waliba horumarkooda iyo waliba barnaamijyada nabadda iyo xasilinta Soomaaliya. marna wacin karaan buu yiri falalka fulinimada noocaas oo kala ah in aanu ka sii howlgalno gudaha dalka Soomaaliya. warkii caalamkooda la socodsiinaya Nabi Jibril Xasan Karoon xilliga inta ayaan ku saafmeeraya tan iyo warkayga warka xiga waxa idin leeyahay jimco wanaagsan.